kulanti wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamij aanu idinka diyaarinay xaflad ballaaran oo lagu soo dhaweynayay safiirka cusub ee xukuumadda Soomaaliland ay soo magacowday dalkan Sweden ambassador Sakariya Xasan Wacayse oo lagu qabtay magaalada Stockholm. mudane Sakariya ayaa hore u ahaa gudoomiyihii dalada guud ee jaaliyadaha Soomaaliland ee dalkan Sweden oo uu xilka hayay muddo dheer isagoo qabtay arrimo aad u badan intii uu jagada hayay, kuwaasoo ay ka mid ahaayeen inuu dalkan Sweden uu keenay ama uu ku soo casuumay wufuud fara badan oo isugu jira wasiiro iyo maayaro iyo xildhibaano iyo waliba aqoon-yahano reer Soomaaliland, kuwaasoo kulamo waxtar u ah dalka Soomaaliland la yeeshay xukuumadda dalkan Sweden. mudane ambassador Sakariya wuxuu sidoo kale hirgeliyay qorshihii ahaa in la mataaneeyo magaalooyinka Hargeysa iyo Stockholm, kaasoo ahaa mashruuc aad u weyn oo ay ku guuleysteen dalada guud ee jaaliyadaha Soomaaliland ee dalkan Sweden. haddaba barnaamijkan oo dhammaystirana daawasho wanaagsan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين وشاكرين. كلن كان مانتا أما مرتقات كان مانتا أي جاهليته دمان الفديين دad كرير Somaliland كلن كان oo daaran kadib markii madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo oo u soo magacaabay Sakariya Xasan Wacays wakiilka gaarka ee Somaliland ama ambassadorka Somaliland. aniga oo ku hadlaya magaca gudida dalada guud ahna xogayaha dalada guud ee Sweden, runtii aniga sharaf gaar ay tahay waxaan rabaa inaan noqdo qofka ugu horeeya ee hambaliyaya ee ku dhaa hambaliyo Sakariya. runtii aniga waxay tahay maanta waa maalin qiimo laba ay tahay, waayo Sakariya in muddo ay la soo shaqeynayay waxaan ogahay inuu yahay nin hawlkara, nin karti badan, nin shaqo badan, madaala ah, runtii dalkiisana wax badan u soo shaqeynayay. bismillaahi raxmaani raxiim. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. mudanayaal marwooyin, waxaan halkan marka hore idinku salaamayaa salaanta islaamka. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. intaas kadib waxaan halkan salaan qiimo iyo qadarin leh uga dirayaa madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Somaliland Axmed Maxamed Siilaayo iyo marwadiisa. waxaan sidan oo kale halkan salaan iyo hambalyo uga dirayaa madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Somaliland Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylic iyo marwadiisa. waxaan halkan sidoo kale salaan uga gudbinayaa gudoomiyaha xisbi xaakinka xisbiga kulmiye mudane Muuse Biixi Cabdi iyo marwadiisa. waxaan halkan sidoo limada u dirayaa salaan oo ka salaamaya munaasabadan darteed gudoomiyaha golaha guurtida Saleebaan Maxamuud Aadan iyo golihiisa. waxaan sidoo oo kale halkan munaasabada kaga faa'iideysanaya gudoomiyaha baarlamaanka Somaliland Cabdiraxmaan Cabdilaahi Cawro ahna gudoomiyaha xisbiga wadani iyo musharaxa xisbiga wadani. sidoo kale waxaan halkan jecelahay inaan munaasabada kaga faa'iideysto gudoomiyaha xisbiga cadaaladda iyo daryeelka Ucud Faysal Cali Waraabe. waxaan sidoo kale halkan jecelahay in aan munaasabadan uga faa'iideysto in aan halkan salaan uga diro dhammaan shacbi weynaha Somaliland guud iyo dibad meel ay joogaanba. waxa aan si gaar ah uga mahadnaqayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland ee ii igmaday xilkan qaran
waxaanan ilaahay ka baryayaa inuu igu astiro xilkan muggiisa leh intaa haddaan ka soo gudbo oo aan u soo gudbo xaggan iyo dalkan aynu degannahay Sweden waxaan jecelahay horta runtii my friend Mikael Tesfason oo ah mas'uul dawladda Somaliland ay wakiil sharafeed ugu dooratay in uu qadiyadda Somaliland ka shaqeeyo guud ahaan Europe aba EU ayaa maxay qiimo gaar ay tahay la soo dhawow welcome Mr. Mikael Tesfason mudanayaal iyo marwooyin waxa maanta laga bilaabo dhammaantiin idin aqoonsanahay in aad tihiin safiiro amba dal jireyaal sidii walaaladii af Soomaaliga garanayay sheegeen xilkan la ii magacaabayna anigu aan u arkay kaliya in aan ahay un xidhiidhiye laakiin uu yahay xilka inoo yaala marka la eegay qadiyadeena Somaliland mid inoo wada taala dhammaanteen waxaana gacanteedii hoos taala oo aan isku dhiibay dadkiina faraha badan leh ee caawo ii muujiyay taageerada iyo inta TV-yada iga daawanaysa in aad garab gashaan intii amaanta amba maxayday wax qabadkayga hor laga hadlayay ma jecli inaan ka hadlo laakiin intii waanada ahayd ayaan hoosta ka xariiqday waxa aan ballan qaadayaa oo caawa hortiina ku sheegayaa inaad mid ii tihiin dhammaantiin waxa aan ballan qaadayaa mid ila shaqeeya iyo mid aan ila shaqeynba inaad ii siman tihiin oo intaba aan ahay maanta ilaahay xilkaa uu dhiibay ee aan leeyahay safiirka aan ku ahay inaan dhammaantiin safiiridin ahay idinkuna aad ilaashataan waxaan ballan qaadayaa oo aan jeclahay in aan jaaliyadaha guud ahaan xidhiidh gaara iyo mid toosa iyo mid guudba aan la sameeyo insha Allah bidbillaahi kariim waxaan ballan qaadayaa cid kasta oo Somaliland danteeda wada cid kasta oo Somaliland danteeda wata in aan soo dhaweeyo oo aan garabsado oo aan soo dhaweysto mabda'u doonaha aaminsanaado kaliya ayna maxay midayso qadiyadda Somaliland iyo qarankeena oo noqda qaran adduunka laga ictiraafsan yahay waxa aan samayn doonaa insha Allah marka aan leeyahay waxbaan samaynayaa idinkuna waxa weeyaan garbahaygi baa tihiin dadka aan ku tashanayaa tihiin xafiis ay leedahay safaaradda Somaliland ee Sweden insha Allah bidmillaahi kariim aniga oo la tashanaya anoo ka tala qaadanaya xukuumadda uu garwadeenka ka yahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Axmed Maxamuud Siiraanye iyo wasiirka waxqabadka Saacad Cali Shire waxaan filayaa inay in badan inala og yihiin ay garanayaan markuu wasaaradda qorsheynta ahaa waxa dhici jirtay marka aanu israacneen tagno wasaaradda arrimaha dibadda amba aanu tagno meelaha kale waxa uu sameeyay 5 years planning markuu wasaaradda qorsheynta joogay waa waxyaalihii la noogu soo joogsan jiray marka aanoo ka dab qaadan ka tala qaadanay wasaaraddeeda waxa ii qorshaysan oo idinkana cududiida ka faa'iideysanayo in at least xafiis ay leedahay wasaaraddu halka ka furo insha Allah sanadka 2017 walaalayaal arrimaha jaaliyadaha muddaan ku soo jiray ma jecli in aan sii galo laakiin taariikhdii aan bilaabayay Somaliland National Association amba Somaliland Rigsförbund xaalad buu mariyay intii ogeyd baa og waxaynu gaadhnay maanta daladeena mid xidhiidh dhow iyo xidhiidh kasta la leh dalkan aynu joogno aad ogtihiina dhaqdhaqaaqyo fara badan oo dalkan ka socday oo dalkeena xidhiidh dhow aan la yeelanay taas oo dhammaanteen raysuul haddaynu nahay aynu ku sharfanahay runtii xidhiidhka dalkeena qof walba waa qof baa meel hogaamiya laakiin waxaan haystay saaxiibo walaalo guddi aan aaminsanahay inaanan la'aantooda fuliyeen oo halkan iga dhow Xuseen Wadaadire Cali Xasan
mustafa cabdi ismaaciil waa saaxiibkayga ugu dhow ay la soo wadeen runtiina waxaan jeclahay dadkaasi wixii caawa la igu sheegay iyaga ayaa lahaa markaa sacabka u tuma fadlan walaa aniga oo qiimo gaara siinaya xilkan la ii soo magacaabay aniga oo qiimo gaara siinaya dimuqraadiyadda aniga oo qiimo gaara siinaya danta qarankeenna waxaan ahaa gudoomiyaha dalada jaaliyadaha Soomaaliland ilaa imaka ilaa waqti ka dhacayso gudiyeedu waanu shiray waxaan aan soo jeediyay hawsha la ii igmaday ee qaranka waa hawl culus waxaan u baahanahay dalada inaad caawisaan laakiin xilkii iga qabta gudidu way shireen mustafa cabdi ismaaciil ayaan anigu caawa halkan hortiina ku wareejiyay xilkii dalada run ahaantii waxa weeyaan waa shakhsi aan hubo in uu dadkeena iyo dalkeena iyo ummadeena u shaqeynayo ana garab ii noqonaya iyo xilka aan hayo waxay u tahay fariin dimuqraadiyadda waxa ay fariin u tahay dimuqraadiyadda oo ah xilka aad hayso haddii xil kale kugu yimaado inaad ummadda cidii kale xilkaa wadi kartaad u dhiibto marka mustafana waa qof aan ku kalsoonahay insha Allah hawshaan inoo wadi doona aqoonsigii iyo mas'uuliyadda la isaaray iyo saaxiibadeedan hareeraha iga jooga iyo iswuulaytan caawa joognay quruxda badan waa shaqo laakiin dadkii aan u shaqaynaynay dadkaan ictiraafka u raadinaynay dadkii aynu ka fikirayna wax u qabanno waa dadka caawa lagu celceliyay ee abaarta adag hayso ee jiilaal ku soo food leeyahay waxaad caawa ii ballan qaadeen oo sheegayseen oo idinka maqlay oo ku raaxaysanayay haddana ay ahayd xujo iyo message adag inaad ila shaqayn doontaan maxayday wax qabadna igu weydeen caawa arrinka abaaraha aan ugu horreysiino taageerada aniga sakariyahan safiirkiina aad igu siinayseen arrinka abaaraha dadkeeni shacbigeeni islaantii ayeydeen amba hooyadeen amba eedadeen habarteeda biyo la'aanta kaynta u joogtay ilmihii yaraa 3 jirka ahaa shubanka u dhimanayay xoolaheeni haraadka u madhay caawa ugu abaalguda ana igu taageera inaynu inteena halka joogtaa intaynu leesamayno amba telefishinka qaranka habeen kasta uu soo daayay mi 300 oo koron bixino wax badan ma aha ana waadii hiiliseen caawa halkan waxaan sugu nimid inaan u hambalyeeno saaxiibkii Sakariye Wacays oo runtii maanta noqday safiirka Soomaaliland u jooga dalka Sweden Sakariye runtii aniga isagoo runtii wax badan baan soo wada shaqeynay Sakariye haddaan wax yar idinka taabto runtii caawo dhan haddaan wada runtii ma dhameen karo waayo waxa weeye muddo aad iyo fara badan baan wada shaqeynay dadka ugu dhowna waan ka mid ahay Sakariye runtii waa nin aad u firfircoon waa nin dadaal badan waa nin aan daalin waa nin dhageysta guddigiisa waa nin creative oo marba fikrado cusub dhaliya runtii Sakariye waa nin dulqaad badan marmarka qaarkood aniga isagu waxaan telefoonka ku wada hadalnaa markay dadku hurdaan oo aan sawiraysanaa waqti walban waan helnaa maanta xilkan loo dhiibay waxaan hubaa Sakariye inuu ka baxayo waxaan hubaa inuu Sakariye hawshan uu sidii uu dalada uu noola shaqeeyay si ka wanaagsan uu sameyn doono aniga Mustafa ahaan oo SSC ah matalaya guddigana ku jira waxaan ballan qaadaynaa inaan safiirka la shaqeyno hadduu Ilaahay raacdo idinkuna waxaan ka codsanaynaa inaad la shaqeysiin. And when we look at the Horn of Africa, it was nearly totally red.
Somalia, Ethiopia, all those countries, Eritrea, you know, Yemen, and the Arabian Peninsula, was nearly totally red, with 2 exceptions. And that was the country of Somaliland and Djibouti. Can you imagine? The only safe place to travel at the Horn of Africa, according to the US government, is Djibouti and Somaliland. But when you look at the Swedish government, dear Swedish friends, they say that Somaliland is one of the most dangerous places to travel in the world. That's a lie. And we need to change that, to stand up for democracy, human rights, and freedom in the time to come. ujeedada aynu iskugu nimid halkan waxa weeyaan nin in lagu qaaliya oo dalka Sweden qiimaha uu ka joogo iyo sida Ilaahay u faansiiyay aad garanaysaan oo ah muftaaxi waxaan leenahay Axmed Maxamed Silaanyo waxaad heshay maanta muftaaxi dalka Sweden furi laha marka waxaan leenahay aad iyo aad baan madaxweyne kaaga mahad celinaynaa qofku shaqada meel buu ka bilaabaa qof waa qof ku saqiira halka uu joogo qofna waa qof hore uga sii socda waxaan huba Sakariya Xasan Wacays safiirnimadaasi annagoo iska wada fadhinay isagoo aan ogeyn hadda waa sida Ilaahay googi ayaa lagu yiri war qasab baad ku noqonaysaa manuu rabin manuu doonin xawayaan de waxaan isku nimi waa xaflad saaxiibkay Sakariya lagu caleemo saarayo waxaan u hambalyeynaa in Ilaahay xilka loo yimaday ku gacan qabto oo Ilaahay ku taageerano inuu ku taageerinaa waxa weeyaan in Sakariya waa nin walaalkaya marka waxa weeyaan dadkana waxa weey markii hore dambe wuxuu haystay maqaaxiir buu haystay oo wuxuu nin dadaalayo waxaan u maleynayaa batii hore uga badanaysa laakiin se waxa weeyaan alxamdulillah nin xil qaaday eed qaad marka waxa weeyaan Sakariina waa nin aad u firfircoon inkastoo nageeriyay haddana waxa weeyaan maskaxda waa nin waxa weeyaan taama ilaahayna uu si barakeeyo annaguna waxa weeyaan de mucaarid baan nolol shaqeyn awal baan nolol shaqeyn jirnay waxaan u hambalyeeyaa saaxiibkay Sakariya in Ilaahay xilka u fudaydiyo waxaan kaloo isagana u hambalyeeyaa ambassadorkii hore isagana in Ilaahay meel khayr qabo ugu bedelo markii la bedelay xilkuna waa meerto labadiina waa idin hambalyeeyaa kugu asuro xilka sidii markii aad ahayd gudoomiyaha dalladda aad uga shaqeynaysay inaad uga shaqeysatan baan iyadana rajaynayaa aad isku kaayo wado waxaan se rabaa inaan laba kelmadood ka jawaabo oo tii Cabdikariin yahay tiina kiric waxa weeyaan Somaliland wadan la ictiraafay maaha waa wadan curdayna waa wadan soconaya waa wadan qof kastaana wuxuu qaban karo wax ku soo kordhiyo ragga Kenya tagay ma wadaan dibidaamyo Somaliland kuma wadaan waxay u wadaan inay wuxuu qabtaan oo wuxuu taraan inay adigi leeynaga joojiyay kala hadlaan safaaradda Sacuudiga si ay u geyso marka Mankistaani maanta siyaasad ahayn waxaan doonaynaa inaan mid wada noqono oo Somaliland meeshii dalooshaba in cid buuxiso halka dawladdu tahli kari weydo in dadka kale ay buuxiyaan sidaasaana wax ku hagaagayaan saasaana wax ku soconayaan waxaan leeyahay Cabdikariin TV-ga qaranku waa cashuurta ummadda ayaa laga dhisay mucaarid iyo muxaafid iyo mid aan ahayn intuba xaq waxay u leeyihiin inay ka hadli karaan fikirkooda ka jeesanayaan maanta Sweden baad ku nooshahay Stockholm baad ku nooshahay TV-adka iyo TV2-ga dawladda iskale laakiin waxa laga sii daayaa mid kasta oo mucaarid aragtidiisa uu dawladda wuxuu ku sheegayo u malayn maayo qof mucaarid ah inuu Somaliland xumaan ka sheegayo intuu tago Swedishka oranayo dalka iyagu ma jiro jabad ma nihin waxaan nahay qaran taagan isbedel ku soconaya mar kastaba walaalkeen ambassador Sakariya Xasan Wacays ayaan anu historygiisa backgroundkiisa wax yar ka oranayaa maadaama in badan la soo noolaa school baan ahay school ilaa dugsi dhexe dugsi sare run ahaantii waa shakhsi jecel dadaalka waa shakhsi ay ku abuuran tahay creative inuu wax dhaliyo inuu horumar sameeyo nolosha waxaan xasuustaa waqtigan secondary ku jirnay Faarax Umar Secondary School Hargeysa nusaaca marka loo baxo annagu waxyaabo kale aan sameynayno buuga wallahi geedku loo fariisan jiray dadaalku waa mid ula dhashay waxaan aad iyo aad ugu rajo weynahay aan hubana run ahaantii Ilaahay subxaanahu wa ta'ala dadaalka uu ku jiriyo dadaalka uu hayo inuu ku gaarsiiyo himilada iyo maxaan ku dhahday horumarka uu mar walba la jeclaa dalkiisa maantana madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Somaliland mudane Axmed Maxamed Silaanyo ugu soo magacaabay safiirka dalka Sweden
dhammaan marti sharafta quruxda badan ee halkan joogta mas'uuliyiinta waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh marka labaad waxaan doonayaa inaan hambaliyeeyo Sakariye Xasan Wacays xilka cusub ee loo dhiibay Sakariye waynu ka wada dhirigsannahay howlqabadkiisa qof barasho maanta inooga baahan maaha waa qof aad u firfircoon oo karti badan oo aan hubo in uu xilka loo dhiibay ka soo baxayo marka inagana waxa la inooga baahan yahay sidii halkan horeba looga sheegay inaynu la wada shaqeyno intii karaankeena adigana waxaan ilaahay kaaga baryayaa inuu ilaahay xilkaas kugu soo asturo gudi ahaan anagu waxaanu la shaqeyn jirnay markii hore oo aan runtii iyadana u mahadnaqayo safiirkeenii hore ee Rooda Cilmi Jaamac oo aan iyadana hawsha iyo xilka intii haysay sida fiican ay u haysay aan ugu mahadnaqayo waxa kale oo aan halkan uga ballan qaadayaa safiirka cusub gudi ahaan inaan anagu hawshii aan wadnay aan halkii ka sii wadi doono kula shaqeyn doono ku soo dhaweyn doono annaguna waxaan rajaynaynaa sidii safiirka hore noola shaqeynayay adna inaad noola shaqeyso oo aynu arrimaha qaranka meel wada geyno taana waan kaa filayaa uga baqan maayo waxaan kaliya kugula dardaamayaa waa run madaxweynaha qaranka ku magacaabay dowladdaad u shaqeysaa laakiin dhammaan shacabka Somaliland ee Sweden waad wada matashaa xisbi kasta muxaafid iyo mucaarid la shaqee waxaan aad iyo aad ugu hambaleynayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland Axmed Maxamed Xuseen iyo wasiirkiisa arrimaha dibadda Dr. Saad Cali Shire inay asiibeen nin waxtara oo runtii muddadii joognay aan la shaqeynay aan filayo inuu halkan ka midho dhalin doono waa Sakariye aad baan ugu mahadinayaa dhammaantood ambassadorkii hore Rooda Jaamac Cilmi waan jeclaan lahaa in halkan joogto laakiin iyadana waxaan u hambaleynayaa muddadii ay joogtay wixii ay qabatay halkii soo gaarsiisay aad iyo aad baan ugu mahadinayaa labada mujaahidee tifiyada qaran ee warkeena faafiya dalmar iyo mataqaanaa TV-ga Home Cable TV abtiga barkhad iyagana waxaan leeyahay waxaad mujaahidiin baad tihiin oo wararkii maarta hadday abaar tahay hadday tahay information kale waa gudbisaan halka ka wada Sakariye waxaa jira abaaro aad u ba'an oo sida la sheegay dadkii ay dhimanayaan maanta waxaa ii muuqda oo dawladda Somaliland ay weli dhaliil ku leedahay awoodeedii way qabatay laakiin waxaanu aragnaa maanta in awoodeedii ay abaaruhu ay ka weynaadeen waxa loo baahan yahay oo aan uga dhigaynaa Sakariye maanta uga dhigaynaa objectivekii ugu horeeyay ama shaqadii ugu horeysay inuu u soo bandhigo arrimaha abaaraha ee ka jira Somaliland iyo gobolada bariga inuu dawladda Swedishka Britol iyo wixii ka dambeeyay gaarsiiyo halkan aanu ka hambalyeynaya horta runtii madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo oo runtii u igmaday maxay haytay safiirkeena maanta Sweden iyo safiirada kale ee uu magacaabay meelaha kale waxaanu leenahay hambalyo waan hambalyeynayna waxaan si gaar ah u hambalyeynayaa caawa oo farxadii ah Sakariye Xasan Wacays oo aanu uga nimid hore meelo fogfog aan uga soo kicitinay magaalada iyo Tobori laakiin Sakariye mid baan waxaan oran lahaa horta dadku mid ha ku noqdo waa lagu celceliyay waxaan oran lahaa dadka talada dad badan baa talo wanaagsan ku siin doona talada dadka ka qaado kadibna kala miraadu wixii aad u aragto inay fiican yihiin ka qaado laakiin dadka dhageysto oo dadka u soo joogso qofka noocaas aanay dadku jecel yihiin
zakariyana laftigiisa aan la kaftamo xaran laasna uu ku guulaysto dadaalkiisii badnaa wuxuu helay aqoonsi yani recognition madaxweynihii mar hadduu gartay inuu wakiil uga noqdo dalka Sweden iyo wadamadan Scandinavian-ka oo dhan marka labadiiba waa ku guulaysteen oo madaxweynaha iyo dawladuna way ku mahadsan tahay annaguna waxaan leenahay hambalyo xisbi gaar ah male inkastoo dadkii hadlay badankooda ay kulmiyo wada yihiin waxay la tahay xisbiyada kalena inay dadka joogaan xisbi ma aha wuxuu wakiil ka yahay waa astaan qaran safiirku marka hadda waxaan kuu sheegayaa Sakariyow ummadda Somaliland adigu xusbi iyo waxaas maaha adigu waxa tahay ambassador ama madaxweynihii baad ka wakiiltay waad ka sarreysaa waxaan oo dhan scale-ka aad taagan tahay iyo shaqadii hore ay soo kala duwan yihiin waa in dadkaaga ku yar iyo ku weyn adigu waa same level protocolka markaad safaaradaha tagayso habka aad u labistaan ka sheekanayna waa in protocol lagu sameeyaa Sakariya waxaan leeyahay waxaad haysaa xilkii Somaliland ee Sweden walaalow waxaad isku xidhaa reer Somaliland oo dhan waxaad kaloo aad samaysaa oo aan kugula dardaarmayaa haddaynu nahay maanta qaran Somaliland ah oo taagan oo aan inagu is aqoonsannay waxaa jirta dhibaatooyin badan oo ka jira waddanka oo abaari wax badan baa laga hadlay runtii halkan waxaan ku xusayaa inan qaaliya oo aabaheed la garanayo oo ololo weyn ku jirta oo xagga abaaraha ah waxaa la yidhaahdaa Faysa Axmed Maxamed Halac waxa weeye inantii Soomaaliyeed ee hoosteesta ahayd qaranka Soomaaliyeed mujaahidada ahayd ee waddanka u soo halgantay iyadii aabaheedba waxay samaysay inay halkan halgan badan ka samayso oo ay ururiso dhaqaalaha iyo abaaraha Soomaaliland ka socda waxaan jeclahay inaad xiriir badan la samaysid waxaan u malanayaa markaan hadalkayga u soo noqdo waxaan ahay qofka ugu dheer ee safarka ugu dheer soo galay anoo ka yimid waqooyiga Sweden gaar ahaan magaalada Umeå annagoo halkaa u soo marnay inaanu xafladan bilan ee sharafta iyo milgaha leh ee lagu maamuusayo safiirka Sweden ee cusub inaanu hambaliyayno leenahay waxaanu leenahay haddaanu nahay jahlidaha waqooyi waa ku garab taaganahay waxaan kaloonu salaamaynaa oo hambaliyay bogaadin u diraynaa safiirkii hore ee Rooda oo iyaduna wax wanaagsan qabatay waxaan aad u mahadinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland Axmed Maxamuud Siiraayo waxaan mahadinayaa marwadiisa Amina Waris marwada qaranka koowaad waxaan mahadinayaa madaxda qaranka waxaan mahadinayaa wasiirka arrimaha dibadda waxaan u mahadinayaa maadaama ay noo dooreen Sakariya Wacays anigu waxaa laga yaabaa inaan wax badan ogahay wasiir waa la heli karaa wasiir caafimaad waa la heli karaa doctor waa la heli karaa agaasimo waa la heli karaa laakiin diblomaat lama heli karo waa wax adag in diblomaasi la helaa easy maaha diblomaasiga marka la helo mudday qaadataa in la tababaro oo dalka uu joogo oo muddo uu ka shaqeeyo laakiin madaxweynaha waxaan leeyahay diblomaasi aan u baahan inuu tababar yeesho oo muddo soo shaqeeyo oo tababarnaa ayaad heshay arrinkaa waa guul u soo yeetay qaranka jamhuuriyadda Somaliland kulanti wanaagsan daawadayaal waxaa halkan aan isku soo gudbinaynaa waraysi kooban oo aan la yeelanayno mudane Sakariya Xasan Wacays ama madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland uu magacaabay inuu noqdo safiirka Somaliland u fadhiyo doona waddankan Sweden oo maanta halkan xaflad aad u ballaaran loogu sameeyay sida aad halkan ka daawanayseen waxa kaloo isagana aan waraysi ka qaadi doonaa Mustafa Cismaan oo ah saaxiibkii isla markaana ahaa gudoomiye ku-xigeenkii gudidii ka mid ahaa dalada guud ee jaalada Somaliland oo maanta Sakariya dadka hortooda uu kaga wareejiyay xilkii inuu noqdo gudoomiyaha dalada guud ee jaalada Somaliland marka hore waxaan ku horeynayaa ambassadorka ama
safiirka cusub ee loo soo magacaabay Soomaaliland Mr. Sakariye ka waran soo aragtaa dareenkaaga maanta shaqada lagu soo magacaabay bismillaahir rahmaanir rahiim maxay barkhada adiga iyo maxay qaybta warbaahinta ee Home Cable TV horta waan salaamayaa marka hore run ahaantii kulankan maanta wada joognay waxaan filayaa adiga ka marxaatiya waxa kulan aad u qiimo badan run ahaantii waxa uu igu noqday aniga fajiciso iyo waxaanan filaynin oo aan maan moodayn maxay shacbiga Soomaaliland intaasoo meelood inay iga wada imanayaan oo ay run ahaantii ku hambalyeynayaan maxay xilkan la dhiibay waxaanan u qaatay inay xilkan ku soo dhaweeyeen oo leeyihiin dadku maxay Sakariye hawshan waad qaadi kartaa waad wadi kartaa waana waxaan mas'uuliyad aad u culus oo aan runtii dadkaygii maanta aan ka dareemay inay hareerahayga taagan yihiin runtii waana waxweeyaan waan maxay mas'uuliyad aan markaasi uga mahadnaqay madaxweynaha jamhuuriyadda qaranka Soomaaliland maxaa ku qorshaysan Sakariye inaad qabato waad ogeed Soomaaliland halkan xafiis kuma lahayn adiga imika maadaama safiir cusub tahay maxaa ku qorshaysan inaad qabatid runtii waxa ii qorshaysan arrimo badan ma rabo inaan ka hordhaco waxa ii qorshaysan kulley madaxdii iga horeysay laba safiir baa halkan iga horeeyay Caydruus iyo Rooda oo qof waliba meel uu qadiyada Soomaaliland soo gaarsiiyay kana soo shaqeeyay run ahaantii anigoo ka tala qaadan doona safiiradii iga horeeyay iyo dadka kale ee maxay qadiyada Soomaaliland ba maxay qaybta weyn ka geysta kaashanayo gacanta maxay jaaliyadaha oo aan runtii marka horeba ku soo jiro gudoomiyaha dalada ahaa experience-ka aqoonteeda kaashanaya inaan isbedel sameeyno ay ka kootahay runtii inay samaysato safaaradda horta meel amba goob xarun ah haddii la yiraahdo waayo Mustafa maanta saaxiibka waxa loo magacaabay safiirka Soomaaliland adigana waxa lagu soo wareejiyay gudoomiyihii dalada guud aad noqotid ka war horta waa ilaahay mahadi mid ah arintan runtii xilkan culus lagu soo wareejiyo run xil aan fududeyn waa runtii waxaan rajaynayaa hadduu ilaahay ii fududeeyo ta kalena runtii mar afaraad iyo shanaad iyo tobanaad waxaan u mahadnaqayaa Sakariye Wacays oo imanka noqday saaxiibkay safiirka dalkan u fadhiya Soomaaliland insha Allah hadduu ilaahay waxaan rajaynayaa isaga inuu ilaahay u fududeeyo ana hawshan imanka la xil saaray ee culus inuu ilaahay u fududeeyo waayahay mudan Mustafa iyo mudan Sakariye aad iyo aad buu Masumalla wana gasido sadki minni ma sare dagale salka digay sama